مرحب مرحب يا رمضان، ويا مرحبا بك يا رمضان. مرحب مرحب يا رمضان، ويا مرحبا بك يا رمضان. صوصع يا رمضان، ولقوا سقاي يا رمضان. صوصع يا رمضان، ولقوا سقاي يا رمضان. مرحب مرحب يا رمضان، ويا مرحبا بك يا رمضان. مرحب مرحب يا رمضان، ويا مرحبا بك يا رمضان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودرسيgeeni sideeda kamid ahaa duruusteeni taxanahayd ee aynu kaga hadlaynay waxyaabaha qofka muslimka ay waajib ku tahay inuu barto, jaahil inuu ka ahaadaana aanay u banaanayn. haddii jaahil uu ka ahaadaana uu ku dambaabayo. duruusteeni hore waxaynu kaga soo waranay laa ilaaha ila allah, macnaha ay tusinayso, waxay doonayso iyo waxay diideyso. laa ilaaha ila allah shuruudda allah subxaana watacaala u sheegay ama nebigu uu ku waramay qofku marka uu la yimaado in laa ilaaha ila allah ku qowlo ku dhawaaqay nafciya waxtara u yeelanayso. laa ilaaha ila allah waa kelmad qiimo badan, waa asalkii iyo asaaskii diinta islaamka. iyada ayaa camal kastoo wanaagsan oo qofku uu sameeyaa uu ka farcamaa, shardina u ah qofka in laga aqbalo camalka uu sameeyey ee kamid a acmaasha ilaahay subxana watacaala uu sharciyey. laa ilaaha ila allah maadaama ay tahay jawharadda qaaliga ee qiimaha badan, adduunyada qofka qiimo u yeelaysa ka dhigaysa qof muslima oo dhiiggiisa iyo maalkiisa iyo dhegtiisuba ay ilaashan tahay, aakhirana lagaga badbaadayo naar, jannana lagu gelaayo. qof aan laa ilaaha ila allah aakhiro aan la tegini janno geli maayo. nebi maxamed baa yihi calayhi salaatu wasalaam, waclamuu annahu lan tadkhula aljannata nafsun waclamuu annahu laa tadkhulu ljannata ilaa nafsun muumina. naf muuminada mooyaane naf kale jannada geli mayso. naf laa ilaha illa ay ka maqan tahayna naf muuminada maaha, waa naf kaafirada. maadaama ay sidaasi tahay, laa ilaaha ila allah qiimaha iyo qadarka ay leedahay, waxa waajib ku ah qofka ilaahay ugu nicmeeyey laa ilaaha ila allah. wax weyn buu allah subxaana watacaala uu siiyey, waxaa weyne ilaahay uu siiyey iyo nicmada ilaahay uu ugu deeqay inuu allah uga mahadnaqo subxaana watacaala, nicmadana u ilaashado. laa ilaaha ila allah waxyaabo buriye ayaa jira oo ay tahay qofka muslimkaa ee ahlu tawxiidkaahi inuu iska ilaaliyo. waxaynu ogsoonnahay weysada oo laa ilaaha ila allah aada uga yari inay leedahay nawaaqid, mubdilaat lwuduu, waxyaabo weysada buriya oo culimadu kutubta fiqiga ay ku qoraan. waxaynu ogsoonnahay salaada oo laa ilaaha ila allah ka derajo hooseysa, derajadeedu ha weynaatee, iyaduna waxay leedahay mubdilaat salaa, culimadu kutubta fiqiga ay ku sheegaan waxyaabo salaada buriya. qofkii weyse qabay waxbaa ku dhacaya, weysadiisi way jabtay oo mid aan shaqaynahayn bay noqonaysa. weyse danbaa looga baahan yahay. qofkii salaada galay ayaa waxyaabihii salaada buriye wax ka midi haddii ay dhacaan, salaadiisii hore midaan jirin bay noqonaysaa. waa inuu salaaddii dib usoo bilaabo oo qofkii salaad kale uu tukado. laa ilaaha ila allah waa sidaa iyo si kasii daran. laa ilaaha ila allah waxyaabo jabiyaa jira oo buriya. iyaga laftoodana culimadu way sheegaan kutubta fiqiga madaahibta afarta, madhabka xanafiyada iyo maalikiyada iyo shaaficiyada iyo xambaliyada intuba waa sheegaan. baab baa kutubta fiqiga ku qoran la idhaahdo baab ridda. aridda macnaheedu waa qof muslim ahaan jiray inuu sameeyo wax islaamnimadiisa buriya, islaamnimadiisu ay ku burto. waxyaabahaana culimadu waa tiriyaano waa sheegaan, ama asbaabu ridda ha la idhahdo sababta diinka baxa, ama ha la idhahdo nawaaqidu alislaam waliimaan, waxyaabaha islaamnimadii iimaanka buriya, ama ha la idhaahdo mubdilaat tawxiid, waxyaabaha qofkii ahlu tawxiidka ahaa ee muslimka ahaa tawxiidka ka jabiya ee ka buriya. waxyaabahaasi waa badan yihiin, laakiin waa la soo koobi karaayo waa wax la isku celcelin karo. waxyaabaha waxa u horeeya laa ilaha ila اllah burinaya ashirku biاllah, in allah subxana watacaala loo shariik yeelo. shirkigu waa maxay? shirkigu waa min asharika ayuu ka yimi, waa shuraakow iyo wadaag.
marka xaqiiqadiisuna waxa weeye shirkigan allah qur-aanka in badan uu ku sheegay allah iyo cid kale in arimaha ilaahay uu la gaarka yahay kamida shuraako lagaga dhigo waa xaq ilaahay xuquuqdiisa kamida iyo khasaa'istiisa waxyaabaha uu la gaar yahay cid kale in loo leexiyo wa jaclu shayin min xuquuqi illaahi wa khasaa'isihi ilaa gayrih shay kamida xuquuqda ilaahay iyo waxyaabaha allah subxaana wa tacaala uu la gaar yahay cid kale in loo leexiya shirki la yidhahda hada huwa shirku xaqiiqadiisu waa taa allah rabbinimuu la gaar yahay khaaliqnimo maaliknimo mudabirnimo iyo caalamkan inuu maamulo allah iyo cid kale haddaad shuraako kaga dhigta ama aad u leexiso waa shirkigii haddaad tira allah cid aan haynba wax abuurta ama wax disha ama wax arsaaqda ama roob keenta ama caalamkan maamusha ciddaasi ama ha noqoto jin ama insi kuwa dhintay ama kuwa nool malaa'ig nebiyo ama awliyo arrinta noocaasi waa shirkigii allah wuxuu xaq u leeyuu lana gaaryahay cibaado cibaadadii allah cidaan haddii loo leexiyo ama allah iyo cid kale shuraako lagaga dhigo iyaduna waa shirki ilaahay magacyuu leeyahay wanaagsanoo qur-aanka lagu sheegay sifaad iyo tilmaamuu leeyahy haddii makhluuqa la siiyo magacyadii ilaahay iyo sifaadkii ilaahay oo la yidhaahdo makhluuqan magacyadiisu kuwa ilaahay bay la mid yihiin ama sifaadkiisa iyo tilmaamihiisu kuwa ilaahay bay la mid yihiin ay la siman yihiin arinta noocaasi waa shirki waana ta ilaahay uu diiday in ilaahay cid lala maseeyo guud ahaan falaa tajcaluu lilaahi andaada wa antum taclamuun ilaahay kuwa aada la masaynaysaan ha u yeelina idinkoo garanaya allah cid la masaahay inaanay jirin mushrikiintu waa garanayeen ilaahay inuu yahay alkhaaliqu almaaliku almudabir haddana allah subxaana wa tacaala iyo cid kale shuraako kaga dhigeen cibaadada iyagoo ku sababeynayey inay dooneen ciddaas inay u shafeeco qaado ama allah subxaana wa tacaala inay u dhoweeyaan allah subxaana wa tacaala qur-aanku inoogu sheegay shirkigu inuu buriyo qofka camalkiisa oo dhan oo iimaankiisa iyo towxiidkiisa iyo islaamnimadiisuna ay ka mid tahay nebi maxamed buu ilaahay la hadlay isagoo cid walba u quus goynaya walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablik lain ashrakta layaxbaطana camaluk walatakuunana min alkhaasiriin waxaa lagu waxyooday nebi maxamedow adiga iyo rusushii iyo ambiyadii kaa horeeyeyba haddaad shirki samayso camalkaagu wuu buraya camalkii shirkiga ka horeeyey oo dhan ee wanaagsanaa habaaan manhuura boor la afuufay buu noqonaya ashirku muxbiطu lilcamal camalka mid buriye weeye kuwa khasaarena waad ka mid noqonaysaa waynu ogsoonahay nebi maxamed ambiyada iyo rusushuba inay ahaayeen kuwa macsuumiina oo ilaahay ka ilaaliyey shirki inay sameeyaan laakiin waa digniin inaga inugu socota waa quusgoyn waa war nuxurkiisu uu yahay ciddii shirki samaysaa inay khasaareen haddii ay ku dhintaan gaar ahaan oo aanay ka toobadkeenin camalkoodii shirkiga ka horeeyeyna inuu noqonayo waxa weeyaan mid buray xadadku weyse jabku siduu weysada u buriyo ayuu shirkiguna camalka iyo cibaadada uu buriyaa islaamnimadana wuu buriyaa qofkii muslimka ahaa hadduu shirki sameeyo miduu qalbiga ka aaminay ama miduu afka kaga dhawaaqay ama mid xubnihiisu ay sameeyeen ay ku dhaqdhaqaaqeen noocu doonayaba shirkigu ha noqdee islaamnimadiisi mid jabtay bay noqonaysaa fursad buu u haystaa inta albaabka towbadu uu furan yahay inuu diinta dib ugu soo noqdo uu soo islaamo laakiin mar hadduu shirki sameeyey islaamnimadiisii way jabtay waman yakfur biاliimaani faqad xabita camaluhu ayuu allah subxaana wa tacaala yihi waxaa ka mida waxyaabaha burinaya qofka islaamnimadiisa towxiidkiisa laa ilaaha ila اllah waxyaabaha qofka ka jebinaya waxaa ka mida sixirka hadduu qofku sixirka aamino oo sixirka uu ku camal falo arinta noocaasi qofkii markii hore muslim ahaa gaal bay ka dhigaysaa laa ilaaha ila اllahna way ka burinaysaa ilaahay baa qur-aanka ku yihi wamaa kafara sulaymaanu walaakina shayaaiina kafaruu yucalimuuna الnaasa الsixra wma unzila calى اmalakeyni bibaabil haaruuta wamaaruut nebi sulaymaan bay yuhuuddu sixiroole ku sheegeen ilahay wuxuu yihi nebi sulaymaan sixiroole ma ahayn nebi ilaahay buu ahaa allahna wax fara badan uu sakhiray ma kufriyin sulaymaan yaa kufriyey ashayaaiin sababtay u kufriyeen waa maxay sixirkay dadka baraan
sixirkana qofku ma baran karo ilaa uu gaaloobo waayo shayaadiin baa dadka sixirka bara shardi waxa waa shayaadiinta qofka horta inuu diinta ka baxo uu sameeyo wax diinta lagaga baxo ilaahay baa yihi wamaa yucallimaani min axadi xataa yaquula inamaa naxnu fitnatun falaa takfur qofna ma baraan ilaa idhahdaan fitnaanu nahay war ha gaaloobin hoy maad iska joogi doontaa markuu isagu arinka noocaasi haari ku noqdo uu yidhaahdo diyaar baanu ahaaye bara markaasay gaalnimada farayaan musxafka ku kaadi ku dul saxarood meel xun ku tuur ilaahay cid aan ahayn bari hadduu doono wuu tukadaaba dadka si u khaldo laakiin waxyaaba gaalnimoa oo qarsoon ayuu samaynayaa si sixirka ay u baraan ilaahay subxaana watacaala qur-aanka wuxuu ku sheegay qofka sixirka barta qofka ku camal fala qofkaasi inaanu aakhiro wax dheefa ama nasiiba aanu ku lahayn walaqad calimuu laman ishtaraahu maa lahu fi laakhirati min khalaaq waxay ogaadeen oo loo sheegay qofka sixirka diintiisii ku bedesha sixir iyo diin meel ma wada gelayaan qofka sixir qaatay diintiisii uu ka tegey weeye aakhiro inaanu waxba ku lahayn qofkaan aakhiro waxba aan ku lahaynina qofka gaalkaa weeye marka sixirka waxaa la ihahdaa xataa horumar adduunyana laguma gaadho saaxiriintu waa kuwa dadka u duleysana u liita shayaadiinta ayaa adoonsada aakhirana waa dheef iyo nasiib la-aan sida aayadda qur-aankii ay tilmaantay waxaa ka mid ah waxyaabaha qofka laa ilaaha ila allah ka burinaya oo laa ilaha illa inay ka jabto sabab u noqonaya qofku inuu aaminu ictiqaado sharciga ilaahay midaan ahayni sharciga ilahay inuu ka wanaagsan yahay ama xagga wanaagga inuu la mid yahay haddii qofka caqiidadaasi ay gasho in sharciga ilaahay laga wanaagsan yahay ama miday bashar sameeyeen dad sameeyeen oo la midii inuu jiro laa ilaaha ila allahdi qofka way ka jabaysaa caqiidada noocaasi qofka waa ka burinaysaa allah baana tilmaamay sharcigiisa mid ka wanaagsan inaanu jirin afa xukma aljaahiliyati yabguun waman axsanu min allahi xukma liqowmi yuuqinuun xukum kastoo ka ilaah aan ahayn waa jaahiliya allahna subxana watacala cid ka xukum wanaagsani ma jirto qofka idhaa xukumka ilaahay mid kalea ka wanaagsan dimuqraadiyadda ka wanaagsan shareecada islaamka calmaaniyada ka fiican diinta iyo nolosha in la kala saaro shuuciyada iyo raasamaaliyada ayaa ka fiican hadduu qofku idhaahdo qofkaas hadduu marka hore muslima uu gaaloobaya waa aayadda qur-aankaa buu beeniyey allah miyaanu odrhan ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwa qur-aankani dadka wuxuu ku hanuuninayaa wadada u toosnaanta badan qofka idhaahda wadadaa qur-aanku uu tilmaamay fii kuli amri min alumuur arin kastoo arrimaha ka mida wado kalaa ka toosnaan badan aayadda qur-aanka qof beeniyey buu noqonaya waxyaabaha laa ilaha illa qofka ka buriye waxaa ka mida inuu qofku aamino cid inay u banaan tahay sharciga ilaahay inay khilaafaan sidii nebi khadar ay ugu banaanaatay sharcigii nebi muuse inuu khilaafo oo iyagu laba nebi bay kala ahaayeen mid waliba sharci ilaahay usoo dhiibay ayuu ku camal falayay sharaaicuduna way kala duunayd qofka haddaba aamino qof inay u banaan tahay ummadda nebi maxamed ka mida inuu sharciga nebi maxamed isagu khilaafo oo wixii dadka lagu waajibiyey isaga aanu waajib ku noqon sida dadka qaarkood ay yidhaahdaan qofkaas salaadii baa laga daayey ama cibaadadii baa laga daayey qof salaad iyo cibaado laga daayaa ma jiro qofku waa addoon ilaahay inta uu nool yahay haddii cid laga daynay nebi maxamed baa laga dayn lahaa qofka markuu wanaag u kordhana cibaadadu kororsadaa haddaad aragto qof la wanaag baa ii kordho ilahay agtiisaan darajo ku yeesho cibaadadii baa laga daayey kaasi waa zindiiq diin la-aan weeye waxa ka hadlinaya dadka ahluliimaanka ah marka nicmo ilaahay u korodho ilahay agtiis darajo ay ku yeeshaan cibaaday kordhin jireen maryam baa tusaale u ah nebi ciise hooyadii nebigeeni maxamed calayh isalaatu wasalaam ayaa tusaale u ah waxaa la mida qofka yidhaahda qofka isaga waxa dadka xaaraanta ka isaga xalaal bay u yihiin tusaalean waa awliyo oo khamriga waa iska cabi karaa isagu ama xoolaha dadka waa iska qaadan karaa ama cidun doone ayuu dili karaa oo jaaza lahu lkhuruuju can shariicati muxamedi sala allahu alay wasalam shareicadii nebi maxamed inuu khilaafo ayaa isaga u banaan oo aanu ku dembaabahayn qofkaasi isaguna waa gaaloobaya waayo muxuu khilaafaya wuxuu khilaafaya aayadaha qur-aanka tilmaamaya inay dadku addoome ilaahay yihiin mukalafiina ku yihiin oo kuwa loo dira ay yihiin waxa ilaahay uu ku faral yeelay ee uu ku waajibiyey ee kitaabka iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam ku xusan iyo qofku inuu addoon ilaahay yahay oo ay tahay sharcigu inuu xidho ku camal falo
ilaa uu dhimanaya sida ilahay uhi wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin ilaahay caabud ilaa geeridu ay ku imanayso. arrinka noocaasi aad buu u badan yahay, waxaanuu ka mid waxyaaba dadka lagu haruursado. qof ilaahay aada uga fog oo salaada aan tukan baa dadka qaarkood weliga ay ku sheegayaan. marka la idhaahdo war waxay weligan aan tukanahaynina waxay ku odhanayaan dadka caamada diinta aan aqoon u lahayn sheekhu darajo gaadho waa laga dhaafay. nebi maxamed miyuu ka darajo sarreeya? haddii darajo la gaadhay cibaado la iskaga dhaafayo ama xaaraantu ay qofka xalaal ugu noqonayso, ma nebi maxamed buu ka darajo sarreeyaa? maxaa nebi maxamed looga dhaafi waayo? abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali iyo saxaabadii kale ee jannada loogu bushaareeyey miyaad maqasheen cibaadaday iska daayeen oo laga dhaafay ama xaaraanta iska dhex qaadi jireen? waxaan odhan jira anagu awliya ayaanu nahay. waxyaabaha qofka kelimatu tawxiid ay kaga burto waxaa ka mid ah qofku inaanu gaalada gaalaysin, an laa yukafir alkufaar, gaaladu inay gaalan yihiin inaanu aamininba. uu ihahdo kiristaanku iyagu waa muminiin ama yuhuuddu iyagu laftooduba waa muminiin, oo aamino diin sax oo lagu dhaqmi kara inay haystaan. waayo arrinta noocaasi beenin bay u tahay aayadaha qur-aanka ee ilaahay uu ku tilmaamay inay gaalo yihiin. lam yakun aladiina kafaruu min ahli اlkitaabi wاlmushrikiin. ilaahay kufaar buu ku sheegay alyahuud wالnasaara iyo mushrikiinta. qofka muminiin ku sheega ama muslimiin qowlka ilahay qof beeniye buu noqonaya. laa ilaha ila اllah waxyaabaha buriye waxaa ka mid ah qofku in uu mudaaharo u sameeyo kufaarta, inuu aamino inay saxsan yihiin, in uu isagoo raalli ka ah mabaadidooda iyo diintooda, diinta islaamkana nacayb iyo colaad u haya, inuu iyaga caawiyo ku caawiyo burburinta iyo la dagaalanka diinta islaamka iyo baabiinta dadka muslimiinta ah. qofka diinta islaamku waa kaga buraysaa arintaas. laa ilaha ila اllahna waa ka jabaysaa. waxaa ka mid ah alistihzaa, qofku inuu ku jeesjeeso allah subxana wa tacaala diintiisa. qofka allah caayaya ama rasuulka caayaya ama shahaadateynka caayaya ama qodobada diinta qodob ka midoo diinta inuu ka mid yahay lahuba caayaya ama caytoos aan caayahayna ku jeesjeesaya wax diintii ka mida, sida kuwa ku jeesjeesaya aayaadka xijaabka, axaadiidta waxa weeyaan garhka in la bixiyo tilmaamaysa iyo kuwa la midka ah, qofkaasi waa gaaloobaya. ilahay baa qur-aanka ku sheegay waan ciyaarayey kaf dambe iga ahayd laga aqbali maayo. wuxuu ilaahay yihi qaar noocaa sameeyey isagoo ka hadlaaya walain sa'altahum layaquuluna inama kuna nakhuudu wanalcab qul biاllahi waaayaati warasuuli kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum. haddaad tira ruuxa maxaa idin geeyey hadal badnaan iyo ciyaar bay naga ahayd bay leeyihin, waktigaan isku dhaafinayni. maanta aad bay u badan yihin kuwaasi hadallada noocaasa ku dhawaaqaya. hebel baa iga xanaajiyey, waayo markuu hebel kaa xanaajiyey ma wax kaloo caydaabaad weyday kolley baa dad caytamayso. allaha khaaliqa maxaa kuu geeyey? nebi maxamed maxaad aflagaada ula doonatay? diintu maxay kugu samaysay? inaanad allah jeclayn oo nebiga aanad jeclayn oo diinta aanad jeclayn oo weyneyn qalbiga aanad ugu hayn ayay taasi tilmaamaysa. waayo qofku wax la liito u necab yahay unbuu cay u quuraa. ilaahay wuxuu ihi subxaana wa tacaala waxaad ku tiraa waxbaa cudur daaranina. war ma allah iyo rasuulkiisa iyo aayaadkiisaad ku jeesjeesaysa waxbaa cudur daaranina. waad gaalowdeen iimaankiinii dabaadiyey. qofku haddii uu sameeyo wax ka mida waxyaaba islaamnimadu ay ku burto, waajib waxa ku ah inuu diintii dib ugu soo noqdo. gaalnimadii laa ilaha illa ka burisayna uu ka dhex baxo, allahna subxana wa tacaala u toobad keeno. sidaa hadduu yeeli waayo, waajib waxaa ku ah dowladda islaamka meesha ka talisa marka la dhaa toobadkeen hadduu toobad keeni waayo waa waslad xun oo xaaraana oo diinta ceebeynayse dadka in laga dhex saaro. suu yihi nebigu calayh isalaatu wasalaam man badela diinahu faqtuluuh, qofka diintiisa bedela dila buuhi nebigu. diinta la sheegayana waa diin lislaam, waayo diin kale oo allah subxana wa tacaala diin ahaan uu u ogol yahay baaban jirin. sa allah subxana wa tacaala uu yihi ina adiina cinda allahi alislaam. allah baynu weydiisanaynaa laa ilaha ila allah inuu inoo ilaaliyo, inuu inaga dhowro waxyaabaha lagu gaaloobay laa ilaha illa ay ku jabto. towxiidka allah inuu inoo sugo ilaa aynu la kulmayno. wajazaakum allahu khayra. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakatu.